جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إسلامنا جاء ليبقى السلام ضياء ونورا في دنيا الظلام. إسلامنا جاء ليبقى السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشائخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. أما بعد، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وتحيتنا إليك يا سيدي يا أبا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. وبعد، ولا ليال يقدم سلام ديران، سلام كالإيلاب سلام قلبي ويلكين، قلبي ولالكين، قلبي ويل الصوماليين oo khayr adduunyo iyo mid aakhirayna la jecel. ilaahay waxaan ka baryayaa sidaynu maanta halakan ugu kulannay guriga alle liiclaa'i kalimati illaah, in maalinka qiyaame maca sayidi ducaah aynu ugu kulanno fii jannatihi wa daari karaamatihi. innahu waliyu dalika wa mawlaah. ila allahi marjicunaa. idaylkeen waxaynu u laabanaynaa alle subxaanahu wa tacaala. waa mowduuca muxaadaradeenna maanta. walaalayaal, adduunkan in badan baynu joognay. ilaahay wuxuu noo keenayna waad garanaysaan, iyo hadafka aynu u joogno adduunkan. waxaynu u joognaa cibaadadiisa, inaynu alle subxaanahu wa tacaala aynu u cibaadaysanno, aynu u qaadanno wax walba uu ina faray, aynu uga harno wax walba oo uu inaga reebay. adduunkan ilaahay wuxuu ina keenay oo aad wada ogsoon tihiin idaylkiin, inagoo nadiif ah, inagoo taahir ah, inagoo aanan dembi lahayn. xubno qaali ah ayuu ilaahay nagu qalabeeyey, wuxuuna siiyey wakhti dheer oo loo yaqaano cumri, waana ra'sumaalkeenna. wakhtiga isaga ah ee aynu joogno adduunkan, ee aynu qabno caafimaadka, aynu cunayno irsaaqda alle, 60 sano, 70 sano, 80 sano, 100 qofku ilaahay gaarsiiyo. cimriga aynu bilaashka ku hellay oo haddana aynu ku naaloonayno caafimaadka, aynu cunayno irsaaqdii alle, ilaahay dheeldheel noogama tegayo. waxaa loo baahan yahay wakhtiga isaga ah, hadaf baa laynoo keenay, shaqaa laynoo dhiibay, xil baa layna saaray, mas-uuliyiin baynu nahay, in aynu 60ka, 70ka, 80ka wakhtiga isaga ah hawshii laynoo diray inaynu ka soo baxnaa la doonayaa. haddii hawsha aynu qaban weyno, dadku waa labe, qaarna way qabanayaan oo waa mu'miniin, qaarna hawshaa qaban mayaan. cimrigana way joogayaan, cunnadana way cunayaan, hawadaa way dhuuqayaan, caafimaadka way ku digdiglaynayaan. laakiin mu'minkii iyo caasigii ama faajirkii ama mujrimkii
wala wada dhimanaya ila Allah marji'una maadaama markaynu ogsoonahay sidaynu ku nimid adduunkan inagoo nadiif oo taahir ah aanan dambi lahayn ma ka fikirnay marka aynu ka tagayno labadan saac aynu nool lahay ee aynu tagayno daarta labaad ee barzakha ah ma ka fikirnay xaaladda aynu ku tagayno walaalayaal ma waxaynu tagaynaa sidii aynu nadiifka u ahayn sidaynu u qurux badnayn sidaynu dambi la'aanta u ahayn sidaynu u fududayn miyaynu ku tagaynaa daarta labaad mise waxaynu tagaynaa inagoo booraysan inagoo culus inagoo wasakh badan inagoo culus inagoo dambi badan miyaynu tagaynaa aynu ka fikirno mana naqaano laxdada aynu tagayno maanta oo halkan aynu ishor fadhino qofna garanti uma haysto inuu halkan ka tagayo waa la wada dhimanayaa soo ma garanaysaan ninkii ciyaartoyda ahaa ee garoonka ku ciyaarayay ee doonayay inuu goosha dhaliyo isagoo ordaya waa ninka ugu caafimaadka badan garoonka isagoo ordaya ayay nafsadii ka tagtay markaasa isagii iyo baloonigii ayaa isdaba gadoomaya kii wrestling ama musaaracada ciyaarayay ee xabadkiisu inta la ekaa isagoo legdamaya ayuu dhaqaaqi waayay waa ka sida xaanshidii sida caleenti geedda ka soo dhacday waa ka wuu jiifaa nafsadii baa ka dhacday sheekhi masaajidka maalinka jimcaha yimid ee sidan oo kale u fadhiyay isagoo hadlayo khudbaynaya ayaa nafsadii ka baxday gabadhii mudiicadda ahayd ee wariyaha ahayd iyadoo qaawan oo hor fadhida meediyaha oo hadlaysa oo waliba dadka daawanayana ay ballansanayso ay leedahay waxaan isu soo laabanaynaa xayeysiinta kadib ayaa iyadoonan ka bixin ay sarajooga ka dhacaysa waa la dhimanayaa dhimashada waqti ma laha waqtiga annaga ma naqaan aynu dhimanaynaa qof walbana wuu tagayaa ila Allahi marji'una seenu ku tagaynaa adduunka seen kaga baxayna rasuulkaanu cadeynaa sallallahu alayhi wasallam laba si un baa looga baxa dadka adduunkan waa mu'min iyo kaafir weeyaan kaafirka keligii ma aha la socda mu'minku waa keligii laakiin kaafirka waxa daba socda walaalkii caasigii faajirkii mujrimkii baa daba socda marka aynu ka tagaynaa adduunkan rasuulka dhahaya sallallahu alayhi wasallam xadiis uu warinayo Baraa ibn Aazib saxaabiga jaliilka ah radiyallahu anhu maalin baa waxa nasiib u yeeshay buu yiri nin reer ansaar ah oo intuu geeriyooday la sagootinayo xabiibka sagootinaya sallallahu alayhi wasallam gurigiisa labaad baa loo wadaa waa ka xabaasha dusheeda uu dhahayo rasuulkeena sallallahu alayhi wasallam dadka marka adduunka ay ka tagayaan waa laba ruux nin mu'min ah iyo nin kaafir ah ama mujrim ah ninka mu'minka ah marka adduunka ay uga dhamaato ee aakhiro uu tagayo waxa uu imanaya waa goorma sariirtu saaran yahay waxa uu imanaya malakul maut iyo ciidankiisii iyagoo qurux badan wajiyadooda aad moodid qorraxdo kale meel ishu qabata ayay ka fariisanayaan halka ayay iyagoo dhan fariisanayaan markaas waxa uu imanaya malakul maut isagiiba uu imanaya ruuxdiiba waa inuu qaaday ogow mar allaala markuu u yimaado qofkiina sariirtu saaran yahay dharkii baa lagu sii duuduubaya lugihii baa marba la taabanaya la leeyahay nafsadii ma ka baxday indhaha sidaan u yeela war oksijiinta ku xira war u yeero dhakhtarkii war sheekhi ha loo yeero warkii kale ha loo yeero reerkii waa ooyaya ilmihii way ooyayaan gabadhii way ooyaysaa waalidkii dhali sidoo kale axibadii iyo ehelkii wixii oo dhan baa isku dhaxwaalan laakiin isaga adduun waa uga dhammaatay waxaan ma arko xijaab baa saaran laakiin maxaa loo furay yuu arkaa yuu maanta arkayaa muxuu arkayaa hortii maxaa yaala فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد حجابك وانو كا قادني باليري حجابك سارنا ee kala teedayay isaga iyo aakhiradiisa isaga iyo daartiisa labaad waa la qaaday maanta adduunyada waxba kama arko iyaga un baa ooyaya
xataa ma maqlo. laakiin maanta xijaabkii saarnaa maadaama la qaaday indhuhu maanta waa xaadda, wax walba hortiisu arkayaa. xaqiiqadii adduunka uu ku joogay ayuu arkayaa maanta. walaalayaal, xaqiiqadaadu maxay tahay gabaryahay? xaqiiqada adduunka aad ku joogtid maxay tahay? markaa daacad baa sidan aad tahay maanta, malaa'igtan aad u eg tahay, sidan quruxda badan aad u labisan tahay, markaa daacad baa mu'minnimadan, saalixnimadan, qaanitnimadan, markaa daacad baa mise waxbaa kuu laaban? xaqiiqadaada maalinkaasay soo baxaysaa. mar allaaliyo markii sidaa la yeelo oo sariirtaa sidaa uu u fuulo, raggiina ay ooyayaan iyo ehelkii, malakulmowt ayaa u imanaya. mar allaale markuu u yimaado ayaa wuxuu dhahayaa isagoo aad iyo aad u qurux badanoo u carfaya, u ifaya, ayaa wuxuu leeyahay nafsad yahay wanaagga badan, nafsad yahay soo shaqaysatay, nafsad yahay u soo bax rido ilaahay, dembi dhaaf alleh iyo jannaad u soo bax. markaasaa nafsadii isma hayn karta, markaasay u soo baxaysaa. si tartiiba ayuu u qaadayaa ilaa uu magaceedii ku soo qoro akhiiran fii cilliyiin, halka lagu qoro, kitaabka lagu qoro ambiyada iyo rususha, shuhadada, saalixiinta, dadka sidiiqiinta ah. halkaasaa magaceedii lagu soo qorayaa. allena waa kuu leeyahay subxaanahu wa tacaala, ina aladiina qaaluu rabbuna allah إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة maxay dhahayaan ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. kuwa dhahay rabbigeenu waa alle oo toosay oo sidaa ku toosay, afcaashooda iyo aqwaashoodu ay ahaayeen lilaah. ina salaatii wa nusuki wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiina laa shariika lah. kuwii dhahayay ee toosnaa, wanaagga badnaa, muslixiinta ahaa, marka ay dhimanayaan, adduunka ay ka tegayaan, maadaama ay u soo noolaayeen ilaahay subxaanah, ayaa la dhahayaa tatanazalu calayhim almalaa'ika. waa laxdadii ay ka tegayeen adduunka ayaa waxaa ku soo deganaya malaa'igtii alle. waa malaa'igtii raxmadda, waa malaa'igtii xasiloonida, waa malaa'igtii bishaaraynaysay ayaa ku soo deganaysa. mar allaala markay ku soo degato maxay dhahaysaa allaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun. ma fogo walaalayaal, ha baqina, hore ha ka baqina iyo xag alle. waxaad ka soo tagteen ee awlaadiinii, ehelkiinii, xoolihiinii, wixii adduunka aad soo shaqaynayseenna ha ka tiiraanyoonina. ilaahay baa idin xifdinaya, hor iyo gadaal ilaahay baa naga xifdinaya. maadaama markii awoodda aad lahayd, ee aad takrifalka lahayd, ee aad ikhtiyaarka lahayd, aad u go'day ilaahay, u shaqayn jirtay ilaahay, awaamirtiisa qaadan jirtay, waxa uu kaa reeba ka hari jirtay, markaad xoogga lahaydee, haddii sida aad ahayd, qof toosan aad ahayd, maanta awooddaadii waa dhammaatay. waad ka tegaysaa adduunka, ehelna waad ka tegaysaa, ciyaalna waad ka tegaysaa, xoolaad ka tegaysaa, waxbaa kaa dambeeya, waxna waa kaa horeeyaan. maanta se awood ma lihid. allaa awood leh, allah ku dhahaya horna ha ka baqin iyo xag alle, wixii aad ka soo tagtayna ha ka baqina. ilaahay baa ilaalinaya, ilaahay baa ma aragtaay kuu xifdinaya. waxba ha ka tiiraanyoonin, gadaal horna waxba ha ka baqina. yaa laga helaa walaalayaal oo aan ilaahay ahayn? markaasaa nafsadii maxay dhahaysaa? waxay leedahay de wixii bay aragtaa, xijaabkiina waa laga qaaday, gurigeedii bay aragtaa, jannaad, waxay aragtaa qusuur, guryo dahab ah, guryo lu'lu ah, guryo jawhar ah, diamond qaali ah ayay aragtaa, oo looga yeerayo kaalay oo ku bishaaraysta la leeyahay. nafsadii markaasay leedahay qadimuunii qadimuunii, war maxaad iigu haysaan adduunyadan? maxaad iigu haysaan? igeeya 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 gurigayga iyo hormariyo ikaxeeya. waa xaalatulbushra weeyaan. ka kale fiiri, waxaa u imanaya marka faajirka, gaalka, caasiga, mujrimka, yaa diiday amarkii alle, marka adduunka ay uga dhammaato oo aakhiro uu aadayo,
waxa uu imanaya sidoo kale isna sariirtii buu saaran yahay waxa uu imanaya isla malaa'igtii waxay ugu imanayaan wajiyo madmadow aad iyo aad u foolxun oo laga baqayo wal billaah iyagoo uraya ayay u imanayaan halka ay ka fariisanayaan meel aad iyo aad uga fog mar allaaliya markay ka fariistaan ayaa waxa imanaya malakul maut madaxa waxa ugu xiran indhihiisa lama arkayo waxa ugu xiran madaxa helmet koofi qafilan oo naar ka samaysan oo kulul aad iyo aad u kulul ayaa madaxa ugu jirta allaaliyo markuu yimaado isagoo aad u madow oo argagaxa codkiisa naxdin leh argiisa naxdin leh joogitaankiisa uu kor fadhiya naxdin leh markaasuu dhahayaa nafsad yahay khabiithada diiday amarkii alle soo baxo u soo bax cadaab iyo cara alle u soo bax hoog iyo halaag u soo bax nafsadii markaasay naxaysaa markaasay ku cararaysaa jirkii meel walba oo qolob ah ayay gelaysaa oo ay qabsanaysaa markaasuu xoog u soo saarayaa sida marada marka xananka uu qabsado qodaxda geedaha ay qabsato oo xoog loo soo jiidayo oo kale laakiin ma oynayo wuu oynayaa xaqiiqatan laakiin maanta awoodii ma la maqlayo haddii dhawaaqiisa la maqli lahaa uunka inta saaran way dhiman lahaayeen laakiin maxaa saaran waxaa saaran sidii عمر بن عاص رضي الله عنه صحابي جليل كأنه وشكيي آثار لقى ورينيو حيري ويلكيس وشكينا يا عمر أوردنتي أواجه هرنا ده جري الله يا آخرة تجي الله يا نفط انتي قبتي سكرات كأركي أو نوغ الشكي أين أدير جروني أبيه بأمرك لمنايا عبد الله ابن عمرو بن عاص أيام مال المركري وحكو أركي أبيه أبي أضاء انتي نوغ الشكي مركز سوي هي وحي إلى أهيد لحظة أن لمنايا أدونك أن كتجي إن نلك أن جيفو تضبط السما كركية أي وصل دعين أو كرك الله يجساري وعليسك قفك قبنية تضبط السما كرك الله يجساري حقه مركز نفتي بقى حرميسة نفتا وحد مدعر بدل الكيد إن كان نفسنا يو حق كليلك بهاش برك اللي جدوا بسليد بروسليد كل جدوا شنبر أنت لا تحجلي كركريسة وأنا كبي حكرين سيؤبد بادو أما أنا كل حد منين سيؤبد بادو سلا صو كلام أها كركركاس وحوجش كينا يا كليلكي نفكو دقي يعوليسكي سارنا مركب قفك أنت سارن مؤين كرايو هذا الكيسنا لما مغلي كرايو محو دقائق لا أيهاي إن كان حوج وين مرقه وين دقلين جري يا ما أنت محول الجيفا قعن محو دقائق لا أيهاي محل ركرجيا عليس بصارا مركا يضع أيا نفسدي بالله قاضيا لكن سحوق له الله قاضيا من الدواقي كرايو إلهي وكوليه هي ولو ترى يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد هذا أركل هيت كقال كعاصي مجرم كفاجر كوينادي كامرك نفسد أي كقاضي سو ملائكته هذا أركل هيت الله ودياب لهيت يا ودياب لهيت سيليان سيوقاديان يضربون وجوههم وأدبارهم فالحمد إيك وحلقة قراعية أو بر عذابك لقى كان لقى قراعية وجيبة إيا بريد حق الدنبا لقى قراعية ما لقي بقى قراعية أو هرنا وكا قراعية قدالنا وكا قراعية أنا لكن ميشو نو سارين يهي أكسجين تبان دونينا شيخي بان أويرينا وويلكيني وقبديني وحبك من نقانا حالة دي سير نبتا أهيد استغانا حالة دانو كسوغن يهي حالة دادو واسري أدونتي الله واسري حالة دادا ولا يقاضي يا نفسد سلاس الله يقاضي يا مجعيسينا هل كاس الوسو قرية جهنم لو قرية إيسجين هل كفراعين هذا الشياطين تقال هذا هل كمقعود لو قرية مركز لا ذا هي إن أي بحري ديديسا إن إله هذا لكل أنت ديديسا وحي لا ذا هي يا ويلها أين تذهبون بها
الله جيدي وحقيت أودان ما تديسان maxaa waxay xaqiiqadii waxay aragtaa aakhiro inaanay waxba uga horeynin gurigeedii inay baylihisay in aanay dhisanin tan bay dhisanaysay tii ay dhistay tii ay kaydisay tii ay ururisay tii ay qurxisay ayay doonaysaa inay rakanto oo ay joogto oo ay ku nagaato waxay diidaysaa in tan ay camirtay laga kaxeeyo oo loo kaxeeyo taa ay baylihisay wartan ilaahay baa noo dhisay taa aynu dhisanno taa cid noo dhistay malaha gurigeeni runta ahana waa halka in badan oo waalidiinteena Allah u naxariistay tan ay xoogoodii iyo xoolahoodii ku bixiyeen oo ay isugu geeyeen tii la rabay ee xaqiiqada ahaydna way baylihiyeen walaalayaal dadku waa labada adduunka marka laga tagayo labada sifa looga kala tagayaa waa laba xaalo حالتين كسوغنهاي حالة البشرى والسعادة وحالة البؤس والشقاء ورمتن أيانو كتغي دونا إلهي آنو كل مدونا حالة بشارة حالة قروح البدن وناقة بسوحين إلهي كل هرتغي دونا حالة بؤسيقة لبن هلاقة تيران يدله حالة يا هوغي بقى حالتين واسده maanta inuu dul joognaay aynu ka fikirno xaaladan ilaahay kula kulmayna walaalayaal hooyooyinkeen waan arkaa aad bay runtii qurux badan yihiin guri ilaahay bay joogaan waqtigan oo ay intii kalena jiifto ama adduunyo ay ururinayaan ayay iyaga u joogaan guri ilaahay ay ku soo urureen awlaadeeni dadkii mas'uulka aynu ka ahayn xaaladoodu waa sidee adoomadii allow aaway wiilashii aad mas-uulka ka ahaydeen ee yaryaraa aaway qurratu caynkiinii aaway gabdhihiinii xaggeed ku ogsoontihiin gabdhihii aad dhasheen ee mas-uulka aad ka ahaydeen ilaahay waatuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara nafsadiina iyo ehelkiina ka badbaadiya haddaad nafsadihiinay ka badbaadiseen oo aad maanta maasha allah xijaaban tihiin idinku oo aad guriga ilaahay u soo degdegaysaan waxaan arkaa inaad leedihiin iimaan maxaa wacay rasuulka dhahaya sallallahu alayhi wasallam qofkaad aragtaan inuu ku sii noqnoqonayo guriga alle oo uu aadayo oo uu ka soo tagayo oo uu aadayo oo uu joogo oo uu wax ku akhrisanayo uga markhaati noqda iimaan laakiin ciyaalkeenii wiilashii gabdhihii xaalkoodu waa sidee ma ku darsanay xisaabta annaga haddii aan ilaahay ka rajaynayna xaaladda adduunka aan uga baxayna inay noqoto xaalatul bushra wasacaada ilmaheennii ma ka fikirnay xaaladday adduunka uga tagayaan waryaad dhalay awlaadan bannaanka wareegaysa ee muslimku ka baxsan la'yahay ee mindiyaha sita dhalooyinka sita sakiimada sita ee dadkii dhacaya oo dadkii dilaya oo dadkii kufsanaya oo culimada ay ka baxsan laadahay wadooyinka laga mari laayahay yaa dhalay soo awlaadeennii ma aha soo wiilasheennii ma aha soo qurratu caynkeenii ma aha soo kuwaanu la soo qaxnay ma aha kuwaanu gaajada iyo maaragtay dagaalada kala soo cararnay sow ma aha intaynu keennay maxaa loo halmaamay maxaa loo ilaaway maxaa loo baylihiyey sida ari carbeedkii maxaa duurka loogu daayay miyaynan ka fikiraynin miyaynan mas-uul ka ahayn miyaan nala weydiin doonin hadhow ilaahay markaynu u tagno war ilmahan aad arkaysaan waa qurratu cayn waa jannadeennii waa naarteennii الله رسولك نهاية صلى الله عليه وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة
ma jiro nin loo dhiibay 2 cunug 3 cunug 4 hal jago maaragtay mas'uul laga dhigay xil loo dhiibay ma jiro oo dhimanaya maalinku dhimanaya isagoo khiyaanay isagoo qishay isagoo ka soo bixi waayay mas'uuliyadiisii oo noo imanaya ma jiro ilaa haddii uu jiro حرم الله عليه الجنة إلهي وكحرم يا جنة حديث صحيح وحين أسعنا فريق في الجنة وفريق في السعير هذه الجنة اللي نحرم أولادني قبضا يويل كاير أي نحرمان أي نديدان حقين تجينا وحين تجينا وعدي والعياذ بالله وعذابك ودون بين جوجنا أي نكفكرنا أولادنا ورلمها يرير من دياوته هبينك كوحكوحدا سوبر باور محل دها ستاكي كجوا او من دياوته او علمادي intay qabsadaan mobiilaha kala baxaya lacagaha dhacaya hooyooyin iyo waalid gabar iyo wiil rag iyo dumar aan u kala aabayeelaynin suuqa aynu ku daynay ma allaaliya marka la qabtana aynu lacagaha kala daba ordayno ورمسلاس أخلاق الرسول كأنه كده حلي وهدي علماء كعض أو مسؤولين يوكعان أو الأروري أو حبيسين اللي جيو ما لها دقن عيلس كالا جيو إلا أنه هو تربيين ويني لكن حقا لجيو هو يدي اسكد جناد عنقد إلا وذي مركز يسوي برارو جيساه مركز كستي العقد هذا سوق هذا يساء الذهب كي مركز قالك وجينا يساء عنق بالسود دينيا يكسو دينيسا ummadii bay ku soo daynaysaa kana celin mayso ummadii buu dilaya culimadii buu dilaya amnigii imaarta amaankii buu mufsahaadinaya wadooyinkii lagama mari karaayo haddii la xiro oo lacag soo dayn weydo lawyer bay u qabanaysaa iqareen waatu way daba taagan tahay war marka dhibka uu soo gaaro wiilka adduunkan waa adiga daba taagan ee harsan la ee jiifila ee daba ordaye ما دب آخر يا كودب أردايا الدون كان هذا دب أرد آخر يا كودب أردايا والمركب يبكوا وقارون بدب أردايا أنتوا وناكسيا أنت دب أرد لك شتد علماء لعجاه قال هذا السين يسوع يا حبيسد وقصوا دين يسوع ما تسيس العلماء يا رجع مسؤولين أنت رجع تببري كره رجع دقن علين كره رجع وحبري كره رجع جلين كره أورك هذا إيمان إلهي كسوك ما تسيسان cunuga inta la qabtay aad soo daynaysid aad ku soo daynaysid haddana bulshadii oo haddana intuu wax geysto la xirayay haddana aad soo daynaysid oo lacagaha aad kula daba wadid ilaahay baa dhahay subxaanahu wa tacaala ha antum haulaa جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا كوانو وإذنك أدود يأدون كان وإذنك الدبؤرد يأدون كان وإذنك العياه كسو الدين يأدون كان قرامد وقوانا يأدود آخر يأدود دونا آخر يأدود دونا أما يا وكيل النقن دونا badbaadi adoontii Allah badbaadi wiilkaaga lama rabno dhib waa wiilasheeni waa gabdhaheeni gabdhuhu ma sameeyaan waa wiilasheeni waa qurratu caynkeeni waa dadkii ilaahay hibadii ilaahay ina siiyay nagu karaameeyay aynu badbaadina adduunkan aynu culimada u dhiibno lacaga xagga aynu geynayna aynu halkan keenno culimada aynu ku xoojinno macallimiinta aynu ku xoojinno aynu idaylkeen bulshadu way iskaabtaaye aynu idaylkeen gacmaha isu qabsano ilmaha sidaynu u tarbiyeyn lahayn u dhaqan celin lahayn xerooyin ugu samayn lahayn waa ubadkeeni nagama awood badna waa kuwaasaa markii ciidan yar ama la keeno tii kale amni yar la keeno la soo ururiyo waa kuwana ood aragtan arrintu siday u degayso wadooyinkii amnigii ammaankii siduu u soo noqonayo waa ilmaheeni nagama xoog badna nagama awood badne aynu idaylkeen isugu tagno مسؤولينتنا معلمينتنا عقاشينا والدينتنا بلشده قيبهده كلا دوون او ادل يا wax kale aynu haysana mal adduunkan waa laga tagayaa waxa mas'uulka aynu ka nahay raas maalkeena aynu walaalayaal ku fara adeegno
akhlaaqda iyada ah maaha akhlaaq aynu ka dhaxalay xabiibka sallallahu alayhi wasallam waa ka uu dhahayo rasuulkeena suuban sallallahu alayhi wasallam inma bu'ithtu liutammima makarim al-akhlaq waxaa uun la ii soo saaray in aan adduunkan ku dado oo aan ku dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan akhlaaqda ugu wanaagsanna waxa weeyaan ilmaheena in aan tababarno ilmaheena in aan tarbiyeyno walaalayaal xabiibka dhahaya sallallahu alayhi wasallam gabadhii ugu qaalisaneed reerkiisa faatimatu zahra ayaa wuxuu dhahayaa law anna faatimata bint muhammadin saraqat laqata'tu yadaha faatima bint muhammad hadii wallahi waxadi lahayd xadiba mayse haday xadi lahayd shilin gacantan gooyn lahaa ano aabihii ayaan gacanta gooyn lahaa annagana wiilkeena markuu gacmaha soo jaro markuu wax soo dhaco markuu caloolo soo rido markuu naf soo gooyo annaga qarsanayna annaga hormarayna ama waa dhoofinayna Orobaan geynayna iyo Carabahan geynayna iyo meel aan laga aqoonin annaga badbaadinayna qofka ugu horeeya annaga waay mataasaanu ka dhaxalnay rasuulka sallallahu alayhi wasallam ma akhlaaqdaasaan ka dhaxalnay hadday faadumo waxaad lahayd anaa qaban lahaa la igama hormareen xaakim kalena ma qabteen anaa gacanta ka goyn lahaa buu leeyahay awlaadeena qofka ugu horeeya ee tarbiyay hadduu edeb darro soo sameeyo aynu noqonno annaga mas'uul ka ah annaga leena weydiinaya haddii aynu qaban weyno oo qolo kale oo ka naxaysa ay qabatay inaan uga daba tagin walaalayaal aynu ugu kaalmayno sidii loo ciqaabi lahaa maaragtay looga goyn lahaa xadkoodii iyo maaragtay wixii ay geysteen akhlaaqdaasuna baraya xabiibka sallallahu alayhi wasallam lahjaclada iyo nafjaclaysiga iyo awlaad jaclaysiga xaggaas aynu iska dayno walaalayaal awlaadeena inagoo dhan aynu ogaano ila allahi marji'una halkeen u noqonayna halka weeyaan walaalayaal maxaynu la tagaynaa taasi waa mid وويلشيني وين بيلهني فما حال بناتنا قبلهني حال الضوء واسده قبله أين ضلي برنا قل لها هويوينك سو صار لها جيل أين أدي بلهن فريه قرية نقول لها مصابيح البيوت قبله قالقاها جوهرتها لؤلؤها إلهي قيمي وإيالي حالكود واسدي حالكود قبله إلهي أدهي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى جوغ غريهن كو اكاد غريهن كو دورسونادا halkii leedan ka dhalay halkii leedan ku dhalay halkaad ku qurxoonaydeen halkii ilaahay idan kala dardaarmay in aad joogtaan ku ekaada gabdhihii la yiri aaway ma aha xabis guriga waqarna markaad maqashaan ama dadka qaarkii markay maqlaan yaani u qaadanin guryihiina xabis ku ahaada xabis infiraadi ah oo gabdhaha lagu ciqaabaya may waa halkay ku asturan yihiin waa halka ilaahay uu ku ammaanay halka waxa weeyaan raxmadii iyo maghfiradii iyo dambi dhaafkii ay ka helayeen waa halkii hawshooda mustaqbalka ay ka qabanayeen ay ku barbaarinayeen awlaada ay jiilka soo kacaya laakiin gabadhu waa danaysan kartaa waxbay soo baran kartaa wadad bay soo salaami kartaa way soo adeegan kartaa banaanka dana way ka aadi karaan laakiin waxa la yiri sidaad gurigaaga ugu asturneed hadana ku bax ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى هأبن بحنا سيدي جاهلية هوري واجي هوري سيدي لو بنبحي حتى ما جاهلية دويدة أقو جاهلية هوري واجي فعل به جري عصر الحجر مركي دي لقاونا لابد الصواتين كاون انت على الإبلاي انت مريا لقالوا الإمقار أياه وقفك سيدي هو يدي وليش لو بنبحي جري سيدا هيالين أيال ليه دائما القرآن كان وحو أستراد يحوج وصار وهوينك محاوعي وقالي ويان الدون كأردن وحالي يروى راحو وحان وصي قيمة بدن امرأة صالحة قبل الصالحة دعا سيده يوينكي مؤمنين قبله رسوشا رضوان الله عليهم أو ننكيذا كعاوسة الدون يآخره
ninku keligii ma taagnaan karo وجعل بينكم مودة ورحمة وكان ليه ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها إن تكحس الشام منكم ما حسل إلا قبر ونكسن الصالح هذا أوهله قبر هو السكن وحسلوني ودقناشو وطمأنينة مر والبون إنك قلق إيو استرس مارت اكتئاب والولي ولاع ودريمو عليس ودريمو حقو أسو أردا قبل يسو أسو أرديا حاسكي سو أسو أرديا أو دجينيسا gabadha wanaagsan ee u soo ordaya dejinaysa taa ayaa ah waxa adduunka ugu qaalisan qiimigaasu ilaahay inoo yeelay walaalayaal oo gabdhaheennii u yeelay waa ka uu dhahayo alle subxaanahu wa tacaala rasuulka isagoo la hadlaya yaa ayuha nabiyu qul لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن حتكون هذا هوين كاغا وح الأمر يا وقبله وقالي سنة الدونك أونك أوردن وأمهات المؤمنين رضوان الله عليهم وخديجة وعائشة وسودة وحفصة الله أكبر أيال ليه وحد هذا إيجا يقبلها قرة عينك جوهرتا لؤلؤة دائما كاير أي دلين وحد كتر هذا يا لراعي ونساء المؤمنات مؤمنين قبلها مؤمنات كأه وحلو الدجيي هل كيل الدجيي حاسسك رسولك إيه قبلها رسولك وحلو فري إن أدحرتد فاشنك أما موضوع لفري إن أي حدان هوينك صالحات كمؤمنات كأه أقول حي الرسول إلهي هيسكر رعيانا ها حدانا بركان قروح ضبضن أي كشبهيان حور العين ته marka ayaa lagu faray laguma farin wax ka duwan isku heer baa lidin geeyay dadka labay u kala baxayaan marka iyada ah waxay u kala baxayaan dad raaca amarka oo xidha qariye jirkooda ku astura dharkan wanaagsan iyo dad diida teebad kamid tahay marka adoonti allah masaajidada marka la iimanayo meelaha diinta lagu barto la iimanayo majaalisul cilmiga la iimanayo waa kuwan dadku waa qurxoon yihiin laakiin marka la joogo aroosiyada marka la joogo la ciyaarayo la isruuxayo maaragtay la dabanayo marka iyada ah war dadka ma idinka mise waa dad kale waa ayo dadka iyaga ah soo nafsadeeni ma soo xaasaskeeni ma soo habaryaraheen eedooyinka soo gabdhaheeni ma maalin baa anigoo jooga qaahir stuudiyo aan wax ka duubayay ayaa shaashada waxaan ka arkay dhalinyarana way daawanayaan sawir baa la edit gareynaya oo la sameynaya ayaa waxaan arkay shayaatiin wax kale ma dhihi kari dharkii intay dhigteen ilaahay uu og yahay jirkooda iyo muuqaalkooda oo isruuxaya oo durbaanana loo garaacayo sida isruuxaya wiilashii iyo wixii meeshii joogayna lagu urursan yahay oo la fiirinayo markaas aan waa maxay waxaan waxa qalbiga iga gashay ma dadka Ingiriiska ku noolba kuwa meel kale ku noolaan maayaane halkaas aroosida la sheegay de wax ilaahay un ka caroode war ma halkaas iyo Awroob iyo reer galbeedkiiba markaas wuxuu yiri sheekh dadkan aad arkaysid waa dadka marka aad muhaadarada jeedinaysid malaa'ikta ee ku hor fadhiyaan aqoonin aroosada marka la joogo annaga naqaane baash intay soo tuuraan hebel jooga war hebel muxuu yahay baash igu soo kortooraan hebel waxa noo dhigay dhahan biyuri waayagi waa dadka aad marka u tagaysid aad u jeedinaysid nidadan marka kale halkan qaahiro weeyaan وحجابكن والله فري يدنين عليهن من جلابيبهن إلهي لكن أمونا سود الجنين نومونا فرين إن دتك قاركينه ليسك حجابه دتك قاركينه أن ليسك حجابين يعني أنت أجانب تعنك وضايا سيد أدنك أجنبي وأجنبي أما عرب هذا أما مذو هذا أما الماذر هذا أما مارك قال مسلم وحدون هذا أجنبي وأجنبي انت محارمت معنا انت كلا واسكمت
laakiin inta aad weji taqaanidna waa caadi ya gacmahaagii wejigaagii calugihii waa kubabkii waa caadi oo waa ma aragtay laakiin markuu hebel kale oo uu soo galo ama macallinkii quraanka uu yimaado waxa way awr iisoo qabsug hafurina iisoo qabto xijaabkii kana waa ilmaadeerkii waa dariskii waa jaarkii waa dadkii la waji yaqaanay in badan oo walaalaheena xaaladooda Allah asturay sida weeyaan walaalayaal afatu'minuuna biba'd alkitaabi wa takfuruuna biba'd ya xijaabka hadii la qaato sida loo qaato oo ha ahaado xijaabkan walaalayaal ma aha wax lagu ciyaari karaayo ma aha waad ogsoontiina waad garanaysaan idinkuba xijaabkan caado nooma aha annaga dhaqan uma lihin dhaqan iyo caado uma lihin xijaabka dholol baa jir sida Yemen oo kale iyo wadamo Carbeed oo dhaqan ahaan xijaabka looga qaato gabadha xijaabka wadata ay shiishada cabi karto dhaqan waay iska labis caadi ah waay sida guntiinada aan u qaadano ama diracaan u qaadano xijaabka gabadha wadata ay qaadka u cunayso xijaabka gabadha wadata ay kalaabka u ciyaari karayso iyaga dhaqan weeyaan cid maanta Yemen ama dawladaha kale ee xijaabku dhaqanku u yahay ee waliba indhaha xiran ya hadii maanta ay wax xun sameynayaan waxa waay waska caadi xijaabka gabadha qabta diin laguma tuhmaayo maxaa waa iska dhaqankii beerahay ku falaan waa iska dharkoodii caadiga ah laakiin annaga iyo wadamada qaar xijaabka markaan xiranno waxa noo xiray waa diin la socdata xijaabka waxa noo xiray waxa korkeena daday waxa ma aragtay sida noo asturay waa diin iyo dhaqan iyo amar layna faray weeyaan marka gabadhan xijaabka qaadata waxaanu ku tuhmaynaa diin akhlaaq ayaanu ku tuhmaynaa yeenan halaynin malaheenana yeenan xumaynin xijaabka waxaanu u qaadanay waa diin idaylkeen culimo ayaynu nahay laakiin yeenan noqonin gabadha oo kale gabadha maalin baan quraan akhrisanayay intaanan ka tagin Nairobi hadda ka hor aan ku noolaa guri baan joogay quraan baan iska akhrisanayay gabar ilma adeer aan nahay halka fadhiday gabar baa u timid iyada oo dhan wada xijaaban marka way la sheekaysanaysaa marka waxaan sheegay gabadha malaha xaraj xogo dhibay dareemaysaa waxaan way iska dhigi lahaydoo dhulkuna waa kulul yahay bal ka yara bax kitaabkii baan qaatay gudahan iska galay markaan galay horta way nafisto way dhigatay dharkeedii waa labadoodii laakiin hadhow mar baan damcayna banaanka soo aado albaabkan u soo garaacay markaan soo socdaa lugahan dhulka ku soo jeejiiday waxaan leeyahay hadii ay dhigatay haddana ha is asturto intaad dhaafaysid markaas waa ku noqodaa wax ii jawaabay malaha albaabkii baan soo garaacay markaas gabadhii waxay ugu tiri war maxaa la leedahay sida odagii soo gal iridu waa furan tahay anna waxaan isleeyahay waa la isdiyaariyey mise haddaan iridii soo furo waa gabadhii ilma adeerka aan ahayn iyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa gabadhii de doorsoon oo de afkii aad de dawaca dhiig soo cantuutay ya oo af guduudan timii wajigi aad yaabaysid oo bahasha intay xagga dhigatay qosolka iyo ma aragtay intay iskala bixisay aanba dharkiiba kasaan sari malaha gabadhii way tagtay tawaatu kale tiimaba noqon kartaba gabadhan iswaas ka dhaafay hadhow ayaan weydiiyay waxay tiri waa isla iyadii weeyaan laakiin xijaabka kama ahayn diin kama ahayn meelaha suuqay ka ganacsataa lacag ma haysata laakiin dharka marka la keeno ayay qaadataa dharkay dukaamada ka qaadaa way soo wareejisaa markaasay faa'iido ka qaadataa sidaasay ku wareegtaa dukaankaanay wax ka qaadaa kanay wax ka qaaday kana wax ka qaaday dukaamadii oo dhan lacagiin way kala dhuumatay sidanba waxa waaye waaba mask waxa waaye waa dadka iska qarinaysa qaa'imad weeyaan si aan loo garanin adigana maanta leedahay waxa waaye waa ya ilaahay baan kugu dhaariyay iyo midda kale la wareysanayo TV-ga bay fadhiyaan meedihiiba haya markaas hoose waxay ku haysataa niqaabkii baa saaran halkaas waxay ku haysataa baashii shiishada ahayd qiiqii markaas waxay ka soo deynaysaa niqaabkii quruxda badnaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun ya ilaahay baan kugu dhaariyay xijaabka mislaasa loogu talagalay waa midoo horta hore asturaadaadan wax macnaa kuma sugna maxaa wacay asturaada waxa wana faray alle markaan u hogaansanaana markaasay wax taraysaa innamal a'maalu binniyat niyadeed u qaadatay xijaabkan
waxaa ku sii dheer ciyaarta iyo jeesjeeska iyo istihzaaha xijaabka quruxda badan ee laynooga keenay min fawqi 7 samaawaat laynaga faray aad ku ciyaaraysid war aakhir xageenu aadaynaa ideelkeen in badan sidaas ay ku dhinteen inna way socdaaneen aakhir xageen aadaynaa war gabdhaheena meel walba maanu ugu gallo waanu naqaanaa gabdhaha oo waa heblaay oo waa gabdhihiinii waad garanaysaa xamar ha laga keeno dibadda ha laga soo celiyo inta ha ku dhalato waa waalid baynu u nahay walaal baynu u nahay xaasis baynu u nahay waynu naqaanaay gabdhaha meel walba ay joogaan maanu u tagno imisaad garanaysaan ilaahay baan ku dhaariyay guryo ah oo halkan ah oo dowrar ah oo dabaqya ah oo gabdho kaliya ay degan yihiin maalinkii oo dhan ay hurdaan oo aad leedahay cimaaradan maxaa dhacay ama gurigan muxuu cidlo u yahay aad la leeyahay habeenkii marka la gaarana buuqa iyo wax ka dhacay aad yaabaysid oo gabdhuhu markuu gabdhol ku dhaco oo intay soo labistaan xijaab soo qaataan aadaya kalaabyada oo soo tumanaya waaga markuu badiya rabana soo noqonayo iyagoo dhacdhacayo urayo oo ma aragtay aqligoodii maqan yahay maalinkii oo dhan la jiifaya sanooyin wad garanaysan guryaha ay ku nool yihiin bas sidaasaynu raali uga nahay gabdhaheena kuwii wiilashiina waa kuwaas markay wax geystaan lacaga la daba ordaa gabdhaheeni waa ku halkaan ku wada dayacan war aawe xilkii qu anfusakum wa ahliikum naaran aawe mas'uuliyadeeni waynu dayacnay illa harrama Allahu alayhi aljanna kuwan waa kuwii naga xarimi lahaa walaalayaal jannada weeyaan walaalayaal gabdhaheena maanta yaa u ah uswa xasana gabdhaheena daayarta yaa u ah ku dayasho wanaagsan yaa u ah yay ku daydaan marka masaajidada la imanaya maaha marka ay tagayaan aroosada yay ku daydaan marka ay kulamada tagayaan marka ay asxaabtu soo salaamayaan ama marka ay safrayaan marka kaligood ay yihiin yay ku daydaan yaa uswa xasana u ah yaa hogaamin u ah yay talaabadooda raacaan mahooyooyinka wanaagsan ee la yiri kudada korkiina ka raariciya xijaabka quruxda badan ma ummuna Aisha radiyallahu anha nisa Angelina Jolie fashionka moodada gabdhaheenu jecel yihiin war gabdhaheenu Aisha taariikhdeeda yaqaanaan halkay ku dhalatay sidii ay u dhaqmaysay cidii guursatay ma aragtay inta awlaaday dhashay mise Angelina Jolie ay taariikhdeedii xifdisan yihiin jecel yihiin maalin walba in looga sheekeeyo fashionka iyo moodada ay qaadato ayay raacaan buugaagteedii taariikhdeedii ayay ma aragtay raacaan wataqaanaan idilkii wad qoslaysaan mise gabadha quruxda badan ee shariifada ah ee sayyidatu ahli aljanna Fatimatu Zahra radiyallahu anha ubaha udgooni qurxoon mise gabadha la dhaho Julia Roberts aad u yaqaanaan taariikhdeeda aad Julia Roberts halka lugta ay dhigto halka ay u dhoola cadayso wajigeeda inta kala ray mariso inta dhar ay labisato Angelina Jolie iyo Julia Roberts iyo kuwa la midka ah iyo aflaamta faraha badan musalsalaadka Turkida iyo Argentina iyo Mexicaanka iyo masaarida Soomaaliga loo tarjumayo kuwa waqtigeena dhameeyay wallahi hadaan xaalada ku dhimano xaaladeenu waxay ku dhamaanaysaa su'ul khaatima xaalad baynu dhiman lahayne xaalada aynu Aisha radiyallahu anha iyo Fatimatu Zahra aynu xaalado aynu jecelahay taariikhdooda siyaradooda aynu akhrinayno aynu walaalayaal dhimanno inaan kuwan inagu daba soconnaa wax noo tarimayaan Allah soo hanuuniyo hadaan soo hanuunin wad garanaysan halka u dambeysay idaylkeen ila Allah marji'una halkaasna u noqonaynaa waan ogsoonahay Aisha iyo Fatimatu Zahra ridwanullahi alayhim in ay liibaaneen in ay guuleysteen jannadiina ay durduuranayaan halka aynu tagna walaalayaal xijaabka waa waajib xijaabka sidaynu maanta u soo qaadanay meel walba aynu ugu qaadano walaalayaal wad garanaysaan rasuulka sallallahu alayhi wasallam mujizaadkiisii waxa kamid ahaa oo aan ku soo khatimaya waa ka uu dhahayo sinfani min ahli an-nar lam arahuma
laba qolo waa ahlu naar mana aanan arkin weligay oo ilaahay ima tuso xataa qiyaamaha marka la yimaadana is arki mayno inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waa laba qolo oo ahlu naar ah oo uusan arkin ayuu inoo sheegayaa as-saadiq al-masduuq alladhi la yantiqu 'ani al-hawa in huwa illa wahyun yuha wax Allah wuxuu ku hadlayo waa waxyi samada laga soo dejiyay rasuulka sallallahu alayhi wasallam laba qolo waa ahlu naar mana aanan arag wa iman doonan macnaha waa goorma 1430 sano horteed 14 qarni ka hor ayuu sheegayaa hadalka anoo noolna iman mayaan ayuu leeyahay mana aanan arkin adduunyo aakhirana ma arki dooni waxa kamid ah wa nisaa'un kaasiyatun 'aariyat مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا والعياذ بالله من معجزاتي ومعجزتي حبيب كينا كصلي يا حبيب كينا صلى الله عليه وسلم وحكمدها قبله نرقبه قاونا نرنا ويقبان وين قاوينه مثل مركا ولا شيء اوبوزيت اسكو ما دحي كرتو قفك ان او درنا قبو او حدنا قاوين يحي ان او كلول يحي حدنا قبو يحي ان او عد يحي حدنا مدو يحي ان او دير يحي حدنا جابن يحي وما واحد اسقاتا امي لكن اك رسولك أنا معجزتي صلى الله عليه وسلم قبل الدرقبة حدنا قاون علمدي وي باربارين مركز وحي اوغادين صدح نوعبه ان اي سدا كو نوقن كرتون قبل هو دربي قبان درعي بي خيرن يهين بير قريها اها اما بير قاويها اها دي جبوتي بي خيرن يهين در وي خيرن يهين واكن لكن حدنا حادودي با موقتا دركودي هوسا موقدا sidaasay ku socotaa oo danteeda ma aha waa ka way xiran tahay wayna qaawan tahay waa mid waxaanu ku faano waa waxa lacagaha badan aanu gelino waa waxa arooska marka la galayo kuba ku ka sii khafiifsan yahay aynu xulanno lacagaha badan aynu ka bixino weeyaan kow ama waxa lagu fasiraa gabadhii dhar ku dhegdhegan iyadoo dhan jirkeedii la arki maayo laakiin dharkeeda ku dhegan xubin walba xubnaheeda kamid ah qaaliga ah waxa waaye waa dhanbu u kuusan yahay waa la arkaya oo waa la garanaya waa dhar yar yar ama waxa lagu fasiraa oo kale nus haafna way ka darbay ka xiran tahay nuska kalena waa kaasa intan yare horaadka ay gadaal way ka asturan tahay laakiin garbihi halka laga bilaabo ilaa ay gacmihii waa maaragtay waa la ilaaway waa kana xuduntii hoose waa la ilaaway halka jilbaa wax ka hooseeyna waa la ilaaway madaxana haba sheeyinba وقف والن دمرك وقف والن سو ما garanaysan waageeni hore waagi di aqligu joogay waagi xishood ku jiray waagi de maartay adduunyadu miisaanayd waagi hore gabadha madaxa qaawan ama islaanta madaxa qaawan maxaa la dhihi jiray allah iblaayo gambadii tuurtay waa maxay way waalatay waa mad way waalatay gabadhii islaan madax qaawan lama arki jirin maantana kunta ilaahay oo maaragtay wax og intay soo qaadato bisaaladii soo fuulay iyadoo madaxi inta blue inta cagaar inta madow uu yahay afki ilaahay og yahay wajigi sida wax rinji sida guri maaragtay cusub rinji la mariyay markaas aan nalalka inta lagu qabto baaragii oo dhan inta u soo urura halkaas ay isruuxaysaa baq jaq oo ay dhididaysa oo ay maaragtay qofka walaal maxaa lagu yaqaanaa markuu halka keligii isruuxayo oo qaylinay ee xaarka oo dhoobada madax marsanayo dadku maxay sameeyaan way ku soo ururaan markaas la qayliyaa oo qaarna waa qoslaan qaarna waa usaabiyan qaarna waa lagu maadeystaa waa un sidii kale sida saamaanta lacag lagu qaadanaya gabdhaheena xaaladooda sida weeyaan walaalayaal صنفان من أهل النار لبقوا النار تعي قليان ما نعرف بولي حبيب صلى الله عليه وسلم قبل قاون أما درحرا وهدنا قاون
maa'ilaat mumiilaat xaqi iyo wanaagii iyo akhlaaqdiina waxa iyagu way ka tageen dadkiina way ka celinayaan haddana fiir waxay isku darsadeen inay dhaqankii ka tageen akhlaaqdii ka tageen qiyamkii iyo xishmadii ka tageen awaamirtii ilaahay diideen nawaahidii wixii laga reebay ay ku dhaceen iyagii sidaasay noqdeen dadkiina way ka celinayaan imma af inay uga celiyaan imma dhaqan inay uga celiyaan oo ficil ay uga celiyaan maa'ilaat waa iyagii mumiilaat haddana dhankii kalena way ka celinayaan waa mufsidiin weeyaan waa mufsidiin ru'uus suu sifaynaya fiiri ma uunan arkin sifadooda eeg ru'uusuhunna kaasnimati albukti almaa'ila madaxooda waxaad moodaa neefka weyn ee geela ah kuriskiisoo kale kuruska intuu leegyahay madaxa ka saaran weliba madaxaas oo qallooca kuruskaas geeloo qallooca ilaahay baan ku dhaariyey waad garanaysaan yaa inta badan waad aragteen buugaagta iyo musalsalaadka iyo khaasatan wararka telefishinada waad aragteen gabdhaheena xaaladoodu waa sidee eeg dhar bay qabaan dhar ma qabaan gabadhii waxaa laga yaabaa 4 shay inay horaadka ka xiran tahay haddana ay ka qaawan tahay waa 4 shay funaanad bay qabtaa tukaloo ka gaaban bay qabtaa bahal ku dhigan bay qabtaa oo haddana jaakad yaro ilaa ay halkan joogto waa jaakad oo gabadha 2 jirka ah ama wiilka 2 jirka uu qaata ayay halkaas ku jijiidaysaa ay qabtaa waa 10 dhar oo kar ah ayay qabtaa sidaas ay u qaawan tahay kow laakiin madaxeedii eega gabdhaheena madaxyadoodii aaway halka qoorta laga bilaabo mara lagu duuduubaya bahal kuriski geela barmiil la eega madaxii ayaa halka ka taagan awal kora loo taagi jiray hatta gabdheen aan wad garanaysaan timaha aanan qabin halkaas ee baaquliyada iyo dambiilaha ay madax saari jireen markaas suuqa marka la isku qabsado caad ay ka dhici jirtay hadda laakiin gabdhihii fiirsu u sifaynayo kaasnimati albukht almaa'ila kuruska geela oo toosan ma oo qallooca maanta gabdhihii markay madax ku duubaan sida uma dheera laakiin gadaal u dheertahay gabadhii halka fadhido waxa arkay baal miiskaas leeg ayaa madaxi gadaal ayuu dheer yahay waa kuruskii oo deemeesh ku jiifo weeyaan ilaa kuwa kariteerka ee kartuumada sameeya ma aragtay YouTube wax soo galgaliya ay sawireen qaarkood gabadhii ugu horeysay oo madaxeedii ilaa xoogahoo ah tukalo waxa ka sii dambaysa madaxii ku wada tabarmeel yar tukalo waxa ka sii dambaysa madaxii jaraanjaro u saaran tahay iyagu kuwa kale uu ka dheer yahay oo socdaan oo gudbi raba meel bridge ah tii hore ya Allah ay ku gudbaysaa tii kale madaxay ku garaacaysaa darbigii ma socon karto yani heer istihzaa sida gabdheeni laga yeelo ilaahay baan ku dhaarshay miyaanay maanta oolin miyaanay gabdheeni qaawanayn miyaanay madaxoodii ahayn kaasnimati albukht almaa'ila gabdhaha ayaa wuxuu leeyahay rasuulka sallallahu alayhi wa sallama la yadkhulna aljannata wala yajidna riihaha wa inna riihaha la yujadu min masirati kada wa kada galimayaan jannada gabdhaha iyaga ah gabdhaha jannada galimayaan bal urkeeda xataa ma urinayaan haddii urkeeda laga helayo laga urin karayo inta tiruu sheegaya xabiibka sallallahu alayhi wa sallam masiirkeeni eeg gabdho maanta adduunka jooga hadday sidaa ku dhintaan ayaa wuxuu inoo sheegayaa sallallahu alayhi wa sallam halka u dambaysa war miyayna jannada rabin war halka aynu isu dadinayso janno ma aha aynu raaxadeeni oo rabba uga soo tagnayso janno ma aha aynu u daynay adduunyadeeni soo janno ma aha waxa habeenkii aynu u dhafreynay aynu u ooyeynay aynu ma aragtay u tukanayna soo janno ma aha ya maxaa haddana ficilkeeni iyo uurkeeni maxaa kala duway war nafsadaheena waa kuwana waa arkaay ma sha Allah idin ziyaadiyo waynu qurxoonahay aynu ka fikirno qurratu caynkeena ubadka ragga ah iyo ubadka gabdhaha ah ee suuqyada ku jira ee banaanka jooga aynu ka fikirno aynu xoogeena xoolaheena aqligeena aynu isugu geyno walaalayaal ilaahay waxaan ka baryayaa وأنت كل يوم هالي هذا إلهي وحن كبر يا قبلهن إنه إلهي أستره قبلهن إنه إلهي أستره قبلهن إنه إلهي أستره أولادنا أولاً إنه إلهي نوبت باديو
inta xiran inuu ilaahay soo daayo, inta daroogistayaasha inuu ilaahay ka soo celiyo, inta caasiga inuu ilaahay baari ka dhigo, inta xanuunsan inuu ilaahay caafiyo, inta maqan inuu ilaahay noo soo celiyo. ilaahay waxaan ka baryayaa inta hooyo xanuunsan inuu ilaahay caafiyo, inta hooyo iyo waalid kala maqan inuu ilaahay isu keeno, gabdhaheena inta aanan guursanin guur xalaala inuu ilaahay u sahlo, inta sabareedka ku jirta inuu ilaahay ka soo bixiyo mar labaad midnimadii iyo unionkii iyo maaragtaa wadajoogii inuu ilaahay isu keeno, inta isu caaraysanee kala jeeda inuu ilaahay isu soo jeediyo, inta isu xanaaqsan inuu ilaahay farxad iyo mawadda iyo raxma inuu ilaahay dhexdooda dhigo. gabar aan guursan ilaahay guur ha u sahlo, guur wanaagsan ay ku farxaan Allah ha u sahlo, nin qurratu aynu ahlu diina inuu ilaahay u sahlo, mid madaxa saarto indhaha hortooda u jooga ilaahay ha u sahlo. haddii ay isguursadaan ubad saalixa oo ubadkan oo kale aanan ahayn ubad saalixa oo adduun iyo aakhira ay ku liibaanaan, sacaado adduun iyo sacaado aakhira u keena Allah ha u yeelo. dhulkeena Allah badbaadiyo, dhulkeena hooyo Allah noo badbaadiyo, bersamaadka Allah ku soo celiyo, midnimadii Allah soo celiyo, horumarkii dhulkeena Allah u soo celiyo. dhulka waanu jecelahay, dhulka waa qaali, aad buu qaali noogu yahay, laabteenu ku weyn yahay. dhulkeena Allah noo badbaadiyo, dhulkeena bersamaadka Allah ku soo celiyo, amni amaan Allah u soo celiyo. dadka ku nool dhulka ay u nasab sheegta uli diirkeed Allah ka dhigo, bogooda burcada Allah isu mariyo. waa dhulkeenu ku asturneen, waa kaynu ku dhalanay, ku soo barbaarnay, wax ku baranay, meel walbo ubadkeena uu joogo dhulkeena Allah ku celiyo. annaga oo dhan Allah inuu celiyo, dhulkeena oo bad qaba annagoo bad qabna Allah isu kaageeyo. hadaynu ka tagno adduunkan waynu ka tagi, waliba goor dhowaynu ka tagiye rasuulka maciisa jannatul firdaws Allah isu kaageeyo. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.